رمضان كريم أصحابته جنالك حقباري كسو دواذا موضوعنا مانتا جيفارا وكما جيفارا ويرتي ددك أن أقون جيفارا أو كما علير جيفارا ددك بدنا وحا كليا أو أي كأوجين أياها إنو هوغامية كعان مانا كيقانا وح انتاس كسي دافيسان فيلسوفية دي لاتين أمريكا وحي كنت المامين جيفارا إنو هقف بين آدين ماذا وح كيقان أين أدكت إن إساقو كرالها الوقت كان حتى حلقان عسرقا إلى الجوغو وحا الشخصية دي جيفارا لوشيغا إن أيد ميد قوليستي wuxuu dhashay Jifara 28 July 1928 wuxuuna jaamacadda Buenos Aires ka qaatay shahaadada masterta ee kulliyadda caafimaadka sanadku markuu ah 1953 isagoo dhakhtar ayuu haddana wuxuu ahaa qoraa iyo hogaamiye jabhadihii kacdoonada ka waday Latin America wuxuuna ka mid ahaa xubnihii ugu firfircoonaa kacdoonkii guuleystay ee Cuba Jifara wuxuu safar ku maray dhammaan wadamadii Latin America isagoo saaxiibkiis Alberto Gernado wuxuuna halkaas ku soo arkay sidii wadamada Latin America ee nidaamka boqortooyada ku dhisnaa u dilminayeen shucuubtoodii gaar ahaan beeraleydii wuxuuna go'aan ku gaaray sidii ugu dagaalami lahaa shucuubtii Latin America oo ay boqortooyooyinkoodii dulmiyeen kadib wuxuu u safray Jifara wadanka Guatemala halkaas oo uu ka talinayay nin ay shacabkiisu jecel yihiin oo wadankiisa Guatemala wax badan u qabtay ayaa waxa si kadisa inqilaab milatari oo ay ka dambeysay dawladda Mareykanka loogala wareegay xukunkii wadanka kadib Jifara wuxuu halkaas ka qaatay aragti ah in wadanka Mareykanka uu yahay wadanka dhibaatada iyo faqriga la rabo wadamada Latin America wuxuu bilaaway Jifara inuu sameeyo jabhada wuxuuna ka tagay dhakhtarnimadii wuxuuna noqday dagaalyahan muddo kadib markii uu noqday Jifara nin meel kasta ka dagaalgala oo jabhada badan oo ka dhisana Latin America ka soo barbar dagaalamay waxa ku qancay oo ka helay kartidiisii dagaal iyo dhiiranaantiisa hogaamiyay Cuba Fidel Castro kaasoo u ballan qaaday inuu dhaqaale ku kaabay halgankiisii wuxuuna Jifara ka sameeyay meelihii uu joogay warshado iskuulo xarumo caafimaad iyo saldhigyo lagu tababaro jabhadihii ka dhisana Latin America iyo idaacada lagu guubaabinayo shucuubtii Latin America inay xukun ka tuuraan madaxweyntooda dhigmeeratada ahayd waxayna dawladda Mareykanka u bixisay xilliga caaqilkii Latin America kadib markii ay ka yaabtay halgankiisa nafhurnimada ahaa Jifara wuxuu nin ay ka go'aantay inuu rido madaxda iyo boqoradii Latin America isagoo u sababeynay inay yihiin khiyaanoolayaal aan u turin shucuubtoodii waajibna ay tahay in xukunka laga tuuro wuxuuna Jifara noqday cabsida ugu weyn madaxweyntii Latin America u diiday hurdada wuxuu caan ku noqday sameynta iyo faafinta jabhadaha gudaha Latin America ugu dambeyn 7 Oktoobar 1967 ayaa ciidamadii Bolivia ogaadeen meeshii uu ku dhumaaleysanay Jifara waxayna ku qaadeen weerar waxayna dhaawaceen Jifara waxaana la horgeeyay boqorkii Bolivia ee Ugashi waxaana 9 Oktoobar Jifara lagu xukumay dil balse intaan la dilin ayuu boqorkii weydiiyay wuxuu codsanay koor intuusan dhiman wuxuuna ku jawaabay waxaan codsanayaa waaritaanka kacdoonka looga soo horjeedo madaxda Latin America wuxuuna sii raaciyay adiga waxaad u timid inaad idisho igu soo tuur xabadda dabadhil fiiho halkaas ayuuna ku dhintay Jifara intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa mowduuceena maanta waana inoo mar kale